adinkoo isqaba oo adiga xaaskiisii aad tahay oo walaashaa damaaciyo guursada sax mase adinkoo kala tagay taagan rabadaantii baan iyada furay waa markaan sheekada soo ogaaday aan aniga arrintii soo fashiliyay wuxuu yiri naagtan mar hore aan fura okay umusabe hal su'aal ku weydiinayna adeer ninka wax balwada ma leeyahay ha uu leeyahay jaad waa soo balwada ya maxay balwadiisa balwada isticmaalaan ها xashiishada horta iyo qaadkii sigaar ninka ma jooga daahiro xashiish haday imaado xaaladda oo adag tahay ما كنت جرى حيصنع ولا شيء وانا عرك قالوا مصبار اسمه مصبارة markaad guursada gurcaala la qaatay wallahi وحي غلطان بعدين مدح يسوق لي اروح حشيش مع حتى غلطان wallahi لكن صوت الحديث شوي قبل على الساعه هي ترى انا والله ما بدي حشيش عبد mudga ma garata waa gartay dadka meesha jooga iyo ummadda magaalada ku nool iyo inta dadka deriska amduuniba waa ogyahay ma garata waa isxirtuu le soo maa wuxuu leeyahay way isxirtaan awal hore sixir baan ku joogay aan intaasoo ciyaal uga dhalay camal qaban lahaa oo waa ula tegey oo inta halkaa ka qaaday garow ka qaaday waxaan ku geeyey meesha la yidhaahdo burco ugu geeyey ma garata waa gartay waxaan ku waa gabadhii ha laga qabto ilmihiina waa ha laga qabto wax allaale waxay xaq u leedahay halkaasaan maanta miiska saarayaa baan ku ma garata waa gartay arrinkanna wuxuu ku yimid sababteeda iyadaa lahayd ma garata waa gartay maalin rabadaanay ahayd anigoo sooman oo ay dagaal cashayla joogto burco ka timid oo maacayaadkii wada oo gurigii ay lahayd iyo wixii intay soo gadatay bay timid waxay tiri lacag waxaad keentaa $4,000 alaab soo siiyo keen ma garata oo caruurtii loo soo siiyey gurigii waa gartay alaabtii guriga waa yacni aan sariiro iyo alaab soo siiyo ma garata waa gartay oo caruurtaada loo rabo waa gartay يعني waxaan ku leeyahay furaashay iyo waxay guriga waan haysanaa laakiin alaabaan oo lin kale waxaan samaynayaa deebiisan way soo gashay xiligaana ma aha ummad badan baa aniga igu taxalluqda ma garata waa gartay gabadhaas markay baxdo baan wax allaale waxaad u baahantay magaalada kaaga qaadayaa baan ku ma garata waa gartay hadday saa ahayd anigoo sooman baan duhurkii guriga imid habeenkii iyadoo kacsan baan ka tegey subaxii duhurkii baan imid waan seexday gaadiidkaan ka shaqeeya nin taliyaa baa gaarigiisa ka soo kaxay waxaan arkay batole hoosta taalloon baa waan soo qaaday waxaan tiri gaariga iyo banaanka ugu jebine gaariga xilligaana ma soo xerin kartide waan barkaday qolkaygaan kale waad ka seexday ma garata waa gartay haddaan barkadaan ka seexday guriga albaabkiisaasaan celiyentay soo gashay oo dhala madaxa kaga dhufatay dabacdii baastolodii inay la fowdo ma garata waa gartay waa doomada oo ilaahay ugu og yahay ma garata waa tabta aan wax bedel lahayn ma garata waa gartay hadday daladii madaxa igu dhufatay waan dayo markaana kiyada baagi baarbaaraysa haddaan arkayna ilaahay wuxuu haleesiyey xaggeedii dambe ma garata waa gartay waxaan ugu talagalayna ma ahayne waa wax xag rabbi ka yimid ma garata saadaan ugu dhegay iyo xadadiyo ku jirta anna saan uga soo saaray gaariga baashi maba eeginba ma garata waa gartay adugii baa xaasi ku dhacday markiiba dhakhtarkaan geeyey markiiba xarmaan u qaaday 20 beri baan ku hayay iyadoo soconaysaa keenay biraan soo gelay lacag $4,000 baa iga baxday ma garata waa gartay halkaasaan ka kaxeeyay sina qurcaan geeyey waxaan ku wax allaale wuxuu dhacay waa dhaceen aduu ninka maxabada kugu dhiftay ها براي وجرى هذا adaa laakiin inaad bustoorada ku dhifata rabtay soo sheegayo waxaasoo dhan waa beenti isqiil buu ka dhiganayaa markhaatiyadii maxkamadda xataa wuxuu idhaahday anaa ka sugu dhuftay muu ku shuud gareeyey caadi uu ugu soo talagalay dee markuu ku shuud gareeyey kadib uu ku uuriyey haa uurkan iyo ilmo kale hadeer joogo yar
meeqa cunuga haysta markuu xabadda kugu dhifanayo 3 hablood baan haystay adoo 3 haysata kadib aad jaraq walaaq samaysay inta xabad lagu dhiftay oo lagu soo kabay oo soo jabtay oo isbitaal soo gashay baad kadib la siistay xataa la sii raacaysatay صح ولا لا؟ ها ilmahan ku dhalay maxay ahayd marka sababta kugu qasbaysay nin xabad kugu dhiftay adoo gabadhii siyaasa oo qurux badan odaga gabowga inta xabad kula dhaco dhash oo jabto sababta kugu celis maxayadana ku geenis ma adaa sixran asaga sixran marka horta hadii la fiirso qiiba Soomaali soo qoraya horta waxa dhacday de anigu marka waan jabnaa anigu hadda dhow baan bakabninka 3 sano anigu sariir baan saarnaa oo waan jabnaayo hore waan u bogsoon waayay ma fahanteen haye ka bacdina anigoo jaban baan inaan ilmaha yar uurkiisa yeeshay adoo jaban jar quraq haye daahiro maxkamadda su'aal dhextaal aan weydiinaynaa hal mar daahiro halka ku sharxo sicirka daahiro iimaanay maxay ta meeshaan horta ma daahiro sicirka wax ka weynaa jir jacaylka oo taas ha okay ii kaadi marka daahiro waxa ii weydiisaa marka xabadda lagu dhufto kadib waalidiinta ma soo dhaxgaleen oo arrinta ma xaliyaan ma soo bilaa waalidin odag u laabatay waan jabnaayo ilaa biraha la iga saaro horta meeshaas wax maxeeday ما إيمانه سوى هذا أنا هنا برا لا يقصر كبعد بقى هذا الكفان إيمانه يا سوماهن حالك مركو حبتك وقفتي وإن سمي صوتها قصتي أقول كلش قبل كلش مزويل ها لبا يدش لبا كهذا علوش كو جري ميد كله ورنيو شغل صومالي اسكا داف جعيلكا كوي سعركي waxaas ni waas jeclaay ما ينيو لكن qof xabad ku taalo fimirkii xabad hay ka dhigay jacaylka jawta warada xasuustiya xoog ma lagu haystaa ما داير أي سؤال تاكل مهم سنبقى قبل ما مقلسا هاي هيري صوتي اللي يروق قفكم مركو جابو أو جبنين وكبني هاي ولوكتك أما قعنتك جابو جرق ورق لو مو قرا صوتي اللي يري معاه جرق ولا قفكم جبني هاي ما كان ما يسقف كذا جرق وصبيس لا أنا أركب هو كوكا أنا أركب وانا وعبرت معاك هذا دمرك وكوكا ما دمرك وكوكا ورقوي اكو ادق سنه قال مود قال ما راه انا waxaan mabaahiba ku geeyay ma sixranayd mise qorshe kale ninka jeclayd maxaa jiray fahamsi horta marka hore inta hawshaas sii gelin fahamsi arintan maxaa ku geliyay marka xabadda ugu dhifto marka aad la joogto ma duruufta kugu qasbaysay baa ku haysa dadku iyagoon isjeclayn bay haddana ilma iska dhaldhalaan imsa isjeclan ilma iska dhaldhalaa oo guryaha ku badan waxaan rabaa ani iqanci adkoo joojiya ani iqanci maxay ahayd arrintan okay ninkan waxbada kugu dhiftaba kibir kugu dhiftay uu ku jibiyey adoo bir kugu jiraan ninkan inaad la seexato dad iska sii dhashaan ma daruufta ku haysaa kugu qasbaysay ma xoog baa lagu haystay ma sixran tahay ما نكا أنا الظاهرة والله أنا ظروف إيماني هيسن الحمد لله رب العالمين كوده لكن والله ما قرن كرايا ما قام هذا الحاصل وان شوقي علمي لبعض بعد أنت بيرو يبتشرين يعني هذا دل الربع فهمت سوقنا في البيت أنت سعيا لأن كذا دلدلي فهمت هل سؤال نحتاج أو يجي سربا ودقايا ومشاهب إن هذا المركب حبض الوجود فتي محا حال مرينا أو كوكا عصدي هو كوكا عيما حال إلا محمد ما لو ذاك رتا شكل إلا وكاج أنت معناها كوكا أو أتكوكا محوكسي معناها مع ما يرى حتى والد كان نمسك الحق لنا اللي هذا وبرت عجائب كه ويديبل يب أنت والد كان عريس صار صار على غيابه وصار حقرين waxa ku qanciyay oo aad ku ogolatay la ninkan dib weyn ku geystay xabadu adoo xaaskiisii wax xabad ku qoray waxa macnaha raali gelinta keenay qanaacadan inuu ilmo ka dhala mar labaad maxaa keenay hantii ku siiyay ma si kale ku maslaxaystay maxaa keenay nala wadaagnaadeen dhammaansan ما لقوا مقلو مصيبة
أنا وحوم مقلة وحما مغشان in adeer waxaad samaysaa umushahaybe samiicadda gacanta ka qaad samiicadda gacanta ka qaad haa samiicadda gacanta ku qabatay hadda hadal ما يمكن هذا الطول أنا ماشي وحنا siida شوقين كمان inaad kabanto ها أنا شوقي ماشي intee sana inaad adeer kaban tahay intee sano kablinkaagu intee sana u qaatay reerkayguna way ii yimaadeen markii arrintani dhacday waa sax ku soco haye reerkaygu markay ii yimaadeen waxaan ku idhaahday waxay ku dhahdeen ina mari intaad soo kabmaysid ninkan annaga la xaalayna kaalayna raac annaga haye waxaan ku idhaahday idinma raaci karayo oo waxaan rabaa inuu la isaga ay jabiyo inuu kabaan doonayaa baan ku idhi isagaa ku ag dhimanaya haye kadibna hooyo waxay igu tiraahday ina mari ilow iyo walaalkay kaama tegina waanu ku kaxaynaynaaye waa kadib markii aan raacayna reerkaygii raaco isagii baa ciyaalkii raay igu qabsaday laba daran mid dooro haye kadib carruurtii markuu igu qabsaday waxaan ku idhaahday reerkaygii maadaama ciyaalkayga anugu kama tegi kara ama waan iswada raacaynaa ama waan wada joogaynaa ma fahantay waa gartay isagii marka wuxuu idhaahday haddaad sidaa go'aansateen idinkuna iyadaad dhasheen aniguna dee anigu waxaan jeclay buuri inay dee macnaha halka ay joogtay ay kabantee haddaad jeclaysateen inaad iyada qaadataan aniguna ilmahanaan dhalay idinkuna iyadaad dhasheen oo ogaada waayo wuxuu ogayeen anigu ilmahayga jecel anigu waan ilmo jeclahay ma fahantay marnaba ma doonin ciyaal لا ده هذا مسته احمد وده هذا wax barto inaad reer musaada ma fahantay هاي كسر ولا لا sidaasaan ku joogay kabacdina inankaa yarba nuurkiisa yeeshay marka sidii waa ku joogtay meeshii uu kasii bilaabo hal xab uu kusii darsaday tiradu buuxiyey ما شاء الله ويا الله إلهي وأقبلي أنت سنة كمان تعين هذا أنت سنة كمنين كأو أنت سنة ويا sanadkii afraad baa ii socda 2 sanana waa la ii qabtay أوكي إنا أفر سنة كبناته كبتانكو أفر سنة ما قاطو صوت ما قرنسا وحول بس بليين ma fahanteen إنا أفر سنة كبناته قفكم مركو الجبين هاي جلاق ولا لما أقرأ قفكم كم مايو لما أقرأ دخاتورتو ويديدا فيري بس halkaas ka qabta dumarka caadi nooc barta dumarka caadi waa dumarka caadi waa okay weeyaan laakiin يعني هذا كور حدا حدين اسكيلاري ويدين هذا كور raggaan ku gaari cali saw bay ragga awareysada inaad arinta kaliya awareysananta qalbiga hol ay dhibaato ku dhacdo oo ay soo rafaada xabad ku soo dhaweeyna nimankan way almar isu one minute حمد لله كان مكان محكمة قيب كي مرة إنه ميل صالح وقارو maxaa leedahay mar rabo aniga macnaha aan meel xun u gaaro oo Soomaaliya idil wada gaaro oo maxaa la yiraahdaa meel walba la wareejiyo hadii marka arrinkan waxaa gaaraya marka filistaanti waxa gaaraya ee taktiibiyto filistaanti waxaa gaarayo gabar caruur ku hayso 4 caruur ku hayso haddana xaamile ah طبعا nin iyo gabadha uu qabay dibki soo kala gaari jiray sida ay iyada inoo sheegtay taas anaga waxyaalahaas dheeraadka ma dhexgeli karno laakiin hadda xaaliyan waqtiga hadda la joogo xaamile ah oo 8 bilood sida inoo sheegtay in bishii Ramadaan 15keedii macnaha waa fasaxay gabadhaas waa fasaxay oo hadda macnaha walaasheedu 22 jir ah iyo xaas ah oo aan macnaha xaasan qabo guri ii joogto dabcan waa arin macnaha dabcan qof walba oo hadda dareen leh ama caqli leh ama maskaxiyan macnaha wax normal maaha wax dhici jira maaha wax caadi ma aha sharci ahaan xitaa haddii dabcan sida ay iyada inoo sheegtay oo ama gabadha maxaa la yiraahdaa nasrada kula joogto si inoo sheegtay inay kula joogto inoo sheegtayna maxaa la yiraahdaa in waqtigaas sharci ahaan haddii aad kala tagtaan oo macnaha waqti dambe aad isguursataan waxna ma ah sharciyan diiniyan macnaha waxa idinka xariman ma lahan laakiin gabadhiyo oo xaafad sila joogtaan oo Ramadaan 15keedii oo haddana dhowr bilood oo aanan macnaha weli gabadhina umulin
oo macnaha weli aanan dhalin aan gabadhi kale walaasheedaha iyo xaasoo guri ii joogto dee dabcan sharci islaam iyo dhaqan toona macnaha taas ma lihinin haa hee hadduu dhacay naagtaas maxkamad buu galay station buu galay odayaal buu galay dad baa ka hadlay ma tahay waa gartay gabadha gobolkuu maray ma tahay waa gartay